waxaa magaalada London si weyn loogu soo dhaweeyay waa musharax madaxweyne Maxamed Aadan Jimcaale loo yaqaan Kofi oo ah musharax madaxweyne ee Galmudug hadaba goobtaas ayaa shacabka ku dhaqan magaalada London iyo jaaliyado idil ayaa waxay ku soo dhaweeyeen garoonka Heathrow hadaba sidoo kale waxa uu heliyay oo la socday madaxweyne Kofi waa fanaanka weyn ee Nimcaan Hilaac iyo waliba gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Xaliimo Yare hadaba goobtaas waxa ka wada hadlay dhammaan jaaliyadihii goobtaas yimaaday iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed sidoo kalena waxa la filayaa in maalmaha soo socda xaflad weyn loogu qaban doono magaalada London dhammaan wafdiga iyo musharaxa madaxweyne ee Kofi hadaba waxaad kala socon doontaan waqtiyada la soo dhigi doono xafladaha iyo halka lagu soo bandhigi doonaba waa baraha bulshada balse waxa hadalla yar aan la yeeshay waa Nimcaan Hilaac wuxuu igu yiri London maanta dhan waxaan ilaahay nin culus baa soo socday ninka culus waa kana islaamay haye London baan joognaa haye waxaan joognaa baladkan shida doona insha Allah waa bashidaysa qasab waayba ninkan waxaan ku iraaday asagoona magaalada shidin meel uu socdo male showgu ugu weyn uu qabanaya insha Allah laakiin ka hor show kala jirto aad iyo yuro wadama lagu wareegay insha Allah Soomaa gaarigaaga diyaar